daawadayaal ku soo dhawaada qaybta idaacadda raadiyo baraarug media oo alaabin ku soo gudbina gudaha waxa ka dhacay geeyga Soomaalida iyo caalamkaba saaxiibayaal haylaawna inaad ku dhufataan subscribe-ka oo si la gareysaan lana wadaagtaan saaxiibadina kale daawadayaal waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa wasiiro ka soo jeeda beesha Habarjalo madax dhaqameed iyo odayaal madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu tagay aqalka madaxtooyada ee magaalada Hargeysa kuwaas oo kala hadlay xukunka xadhiga ay ku riday ee labada sano maxkamadda militariga Soomaaliya Cornel Maxamuud Jaamac Dolaal xoga iyo macluumaad kale oo faahfaahsan oo ku saabsan halka ay marayso arinta Cornel Dolaal iyo beesha Habarjalo Muuse Biixi Cabdi xaaladaha xiliga ka dhaxaloosan maas oo kula foodo isku dareen wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta Xasan Gaafadhi Salaadiin iyo odayaal beesha Habarjalo ayaa u tagay Muuse Biixi Cabdi oo la sheegay in kala hadleen xadhiga Cornel Jaamac Dolaal oo ku xiran jeelka weyn ee magaalada Hargeysa isla markaana waxa la cadeeyay in markii ay ka wada hadleen sababta keentay xadhiga Cornel Dolaal dood dheer oo dhex martay madax dhaqameedka iyo Muuse Biixi kadib uu yiri Muuse Biixi khalad baa dhacay waana lagu khaldamay Cornel Jaamac Dolaal waxa la sheegay inay diintii iyo wasiirada matalayay beesha Habarjalo ay isku afkarteen Muuse Biixi Cabdi oo ay ka soo qaadeen in darajada laga qaado Dolaal oo darajo la'aan uu kaga soo baxo jeelka lana sii daayo ayay wasiirada beesha Habarjalo iyo madax dhaqameedkii iyo odayaashii beeshaasi Habarjalo ay isku afkarteen lana sii daayo Cornel Jaamac Dolaal ayay ka soo qaadeen Muuse Biixi kadib markii ay wasiirada Xasan Gaafadhi Jaamac Xaaji Maxamuud Cigaal Salaadiinta iyo odayaashaasi beesha Habarjalo ay jeelka weyn ee Hargeysa oo ku xiran yahay ugu tageen Cornel Jaamac Dolaal waxa la sheegay in ay u sheegeen arinka uu Muuse Biixi Cabdi ay ku soo wada heshiiyeen oo kana codsaday in uu jeelka uu ka soo baxo Muusena uu cafiyay Cornel Dolaal markii arintaas ay wasiiradii iyo salaadiintii iyo odayaasha beeshiisa ay la wadaageen Cornelka kana codsadeen in uu ka soo baxo jeelka Cornel Dolaal la sheegay Cornel Jaamac Dolaal oo kadib isagoo hadalkii u daba maray odayaasha oo qaatay ayaa isaguna waxa uu yiri ka noqoshada rafcaanka iyo darajo ka qaadistaydu ma kiiskan qaba oo dambiga ayaa igu cad ayaa la sheegay inuu Cornelku weydiiyay su'aal u dhacaysay odayaasha iyo wasiirada beeshiisa ee Habarjalo hadii anigu aan kiis qabo oo aan dambi aan leeyahay xadhigayga ayaan xajisanayaa kadib markii wasiirka macdanta iyo wasiir Xasan Gaafadhi iyo salaadiintii iyo odayaashii ay u waayeen hadal ay ku qanciyaan Cornel Dolaal waxa la sheegay inuu Cornel Dolaal uu ku yiri darajadayda lagama hadli karo iyo wixii ay leedahay meel ka dhaca iyo gafka laygu dhibaateeyay ee aan helo wixii ay leedahay kana aqbali maayo nuuctaan iyo Muuse Biixi ayaa afis kugu sii daayay maadaama iyagu shirqoolkan sharaftayda lagu waxyeeleynayo ka dhacayo sharafta aan leeyahay in aan ka yeelo afis yar oo si fudud ay iskaga yiraahdeen ologiis iyo raaligelin ha ka bixiyaan xadhigayga taliyaha nuuctaan iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay in uu sheegay oo uu ku yiri odayaashii iyo wasiiradii Cornel Dolaal darajadana lagama kadib ayaa la sheegay inuu Cornel Dolaal uu ku yiri odayaashii kana diiday in uu ka baxo jeelka wasiirka macdanta iyo wasiirka qorsheynta Jaamac iyo Xasan Gaafadhi iyo madax dhaqameedkii iyo odayaashii ka socday beesha Habarjalo intii ayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kula noqdeen markii ay u sheegeen in uu ka diiday in la sii daayo oo ka baxo jeelka kuna gacan saarey arinkii ay ula tageen Cornel Jaamac Dolaal waxa la sheegay in Muuse Biixi anaan kala dul dhacay wasiirka macdanta Jaamac iyo wasiir Xasan Gaafadhi taasoo uu ku yiri wasiiradii idinka oo waxba ku fileen ayaad imanaysaan isaga ayaa saxan Cornel Dolaal dhinaca kale waxa la sheegay in Muuse Biixi Cabdi uu khadka telefoonka kula xidhay
gudoomiyaha aqalka golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo safar dalka dibadiisa ugu maqnaa wadanka Yurub markaana waxa la sheegay in Muuse Biixi Cabdi uu Saleebaan ka codsaday in uu arrimaha xiligan ka dhaxaloosan ee ka dhashay Cornel Dolaal arrimaha xadhigiisa in uu yimaado si uu arintaas u xaliyo oo xal waara loogu helo hase yeeshee xogo kala duwan oo idaacadda Radio Baraarug Media ay heshay ayaa u cadeeyay in gudoomiyaha aqalka golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan uu dalka dib ugu soo noqday shalay ka soo degay madaarka magaalada Hargeysa ee Cigaase balse gudoomiyaha aqalka golaha guurtida Saleebaan ayaa intii uu dalka ka tagin waxa uu hore kala sii hadlay arinta xadhiga Cornel Dolaal Muuse Biixi Cabdi isagoo oo la sheegay in uu Saleebaan xilligii aanu ka dhoofin magaalada Hargeysa ee uu dabada u bixin uu ku amray Muuse Biixi Cabdi in uu sii daayo iyadoo oo la sheegay sababta Muuse Biixi Cabdi uu ugu yeeray gudoomiyaha aqalka golaha guurtida Saleebaan ay sabab u tahay isagoo oo ka baqaya Cornel Dolaal haddii uu isagoo oo heshiis ahayn oo arintiisa la xalin uu ka baxo jeelka oo arrimo khatar ku ah maamulkiisa Muuse Biixi Cabdi uu kaga furayo gobolada bariga ee ka soo jeedo Cornel Dolaal isla markaana Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay inuu cabsi weyn ka qabo Cornel Dolaal haddii uu jeelka ka baxo isagoo oo arintiisa meel la saarin in uu deegaanada gobolada bariga uu kaga abuurayo ama kaga furayo kacdoona ka dhan ah maamulka Muuse Biixi taasna ay keentay in uu gudoomiyaha Saleebaan u yeero oo uu kaga eerto arinta Cornel Dolaal oo ilaa iyo xiligan jeelka weyn ee magaalada Hargeysa ku xilan oo ilaa iyo hadda aan wax xal oo waara aan laga gaadhin